Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana wanaagsan soo dhawaada cuntooyinkeena fudfudud meel walba aad joogtaan wax walba oo idin tahay wax galab wanaagsan subax wanaagsan duhur wanaagsan maasha Allah tabaarakallah. Waxaan ka bilaawanaynaa baroosto iyo hamburger cuntooyinka aad iyo aad loogu isticmaalo banaanka gabdhaheena aad iyo aad u jecel mar walbana kuriyoodaan inay xaafadooda ku sameystaan. Maanta waxaan ku hayaa baroosto ama KFC ama Kentucky wax walba saa u taqaanid wadan walba aad joogtid. Waxaan maanta ka saacideynayaa inaad xaafadaada ku samaysatid. Waxaan hadda soo hormariyay hamburgerka maasha Allah tabaarakallah. Hilib shiidan aan keensaday. Hilib shiidan markaa keensatid kadib waxaad ku soo waa muhiim inaad bacdaas aad heshid xataa aadan bac hadaa haysan bac khafiif inaad dhexda kala jartid waa inaad saas u fidisaa ama bacda cuntada loogu talagalay inaad wax yeeshaa kadibna banooni camal aad u soo sameynaysaa hilibka hamburgerka waa ujeedaa kadib saasa bacda ugu xiraysaa bacda markaa saas ugu xirtid maasha Allah tabaarakallah waxaa ku soo baxaya saiskii adiga aad rabtay hamburgerka hilibkana adiga qiyaastaada gacantaada adiga ku caanamaalaysa ma ahan mid adiga lagu soo sameeyay ama lagu soo ciilciilay ama wax yar adiga oo laga soo gatay ama aad isdhehaysid aniga lacagtaas ma haystay waan adaan aqoon ilaa gurigeeda ku sameysan lahay haddaba waa kana sidaan fudud u sameyso maasha Allah tabaarakallah waa ujeedaa hadda digsigan oo digsigan ukunta lagu dubo aan soo saartay maasha Allah tabaarakallah zubda yaraan mariyay zubda daa haysan saliida marsan kartaa kadib maasha Allah tabaarakallah foornada yaraasaan oo tusaysaa foornada markaa saas u tustid wax saas u weyn ma ahan hilibkii oo diyaarsanaa waa kana aad duduwaysaa saliid yar la ku duduwaysaa saliid badan hataa ma ahan waa ujeedaa maasha Allah tabaarakallah hilibka saas oo noqday jiiskana korkaas saas loogu saarayaa maasha Allah waxaan idin tusayaa qaab walba qaabka ugu fiican ee maqaayadaha ay u sameystaan sirtan iga qarsan ee maqaayadaha waxaan jeclahay mar walba inaan hortiina soo dhigo weliba anigoo igu luqeynayo luqadda af Soomaaliga luqadiina hooyo maasha Allah tabaarakallah saan hadda waxaan ugu sameysmay the best king of hamburger maasha hadda saan waxaan ugu dhamaaday hamburgerkii haddana waxaa gelaynaa KFC ma ku fikirtay inaad xaafadaada ku samaysatid xaafadaada adigoo jooga sidaan ugu samaysan kartaa maasha Allah tabaarakallah ma haysataa hal digaag oo dhammaystiran waa ujeedaa maasha Allah tabaarakallah waxaan kaa qarinaya malahan saana u jarjaranaysaa hal digaag waxaa u kala dhigaysaa waa ujeedaa maasha Allah tabaarakallah lugtiya laba u kala dhigaysaa lugta kalena laba u kala dhigaysaa maasha Allah tabaarakallah maasha Allah adiga xaafadaada ku samaysanaysid maanta wallahi been kuma sheegay adiga gacantaada waxa ku samaysatay wax banaanka ka soo gadatay waxa gacantaada ku samaysatay waa fiican laakiin inkastoo banaanka dadka ay jecel yihiin maqaayadaha ay jecel yihiin maanta waxaan diyaar idin la ahay sirta maqaayadaha ama KFC ha noqoto ama ha noqoto baroosto ha noqoto maasha Allah tabaarakallah waxaan rajeynayaa cashirkan inaad si fiican aad ugu heli doontaan waxaan anigana ka codsanayaa indhahaaga inaad ii furtid haddana waa ujeedaa maasha Allah shafkiyaasaan u kala jarayaa chickenkiyaa diyaarsanayaa hadda ku fikiri jirtay ma aniga lacag ma haystay KFC inaan soo gataan rawaa yaa ii soo gadaayo hal adiga daanyeer wax ii soo gadaan raadinaya ha ku fikirin waxaas xaafadaada hadda ku yaala adaa xaafadaada ku samaysan karo xaafadaada isku baani marka maasha Allah tabaarakallah doorada qiyaasta adiga aad rabtida u qiyaasanaysaa si walba adiga rabtida u jaranaysaa haddaad rabtid waaweyn haddii adiga dad badan kula jooga xaafada ku joogaan waad yareynaysaa haddii adiga kaligaaga aad tahay ama adi laba qof aad tahay adiga xaaskaaga ama adi iyo ninkaaga haddaad tahay waxaa waaweynaysanaysaa intaas cad ma u samaysanaysid maasha Allah tabaarakallah waxaa la dhahay wax gacantaada biyo saabadaada loogu dhigay la dhahay korig marka haddana waa kana digaagii waa soo jarjartay maasha Allah tabaarakallah baaquligana ku soo shubanaya kadib waxaan rabaa step by step inaan idin tuso kadibna waxaan ku soo shubay biyo ku soo shubay biyahaasna waxaa ku sii darayaa haddana 5 xabo liin aan soo miiray liin dhanaan aan soo miiray aan ku soo daray biyihii iyo waxaan ku haystaa meesha iyo liintii aan soo miiray isku daray marka waxaan rabaa lafta inay ka gasho koob bur labo qaado bur 3 qaado bur 4 qaado bur aan ku daray biyihii iyo liintii 4taas qaado bur kadibna gacanta ku walaaqaysaa ama qaada ku walaaqaysaa waxaan rabaa inay lafta ay ka gasho cabaar inuu yaalaado 30 daqiiqo ilaa iyo 40 daqiiqo aad uga badnaan hal saacadood inuu yaalaado maxaa yeelay hadaad waxyaalo kale aad samaysanaysid muhiimadda waa inuu yaalaado lafta uu ka galaa cusban waa ku daraysaa maasha Allah tabaarakallah haddana meeshaan
waxaan ku samaysanaynaa bohoraadkii cusbo yaraa ku soo darsaday babrika manila tilmaamaayo xawaajigan gram masala toon shiidan wax walba aad haysatid adiga xawaaji xaafadaada uu ku yaalo waa ku darsan kartaa muhiimadda ma ahan inaad adigoo kharash aadan haynin inaad kharash isgelisid ama aad u niyad jabtid waxaas ma hayo inaad dhahdid ama waxaa ma samaysan kari maasha allah tabaaraka allah xataa haddaad haysatid maraq digaag keliya iyo cusbo keliya haddaad haysatid waa u samaysan kartaa haddaad intaan awoodidna waa samaysan kartaa maasha allah tabaaraka allah muhiimaddan waa inaad khal aad ku dartaa kan hadda ku darrawo waa khal maasha allah tabaaraka khalka waxay kaa saacidaysaa dhadhanka liinta dhadhanka cusbada iyo dhadhanka maxaa la xawaajiyada ina xoogaha yar ee hoos u dhigaan si uusan ugu badanin ilaalo badan oo u leeyahay digaagana aad iyo aad wuxuu noqonayaa digaag aad u jilicsan dhadhan fiicanna leh saliidda ama biyaha markay gaarto oo biyo kulul hadduu gaaro ama saliid sidiisa lagu duwaayo isla markii wuxuu kaa saacidayaa inuu si fiican uu kuugu duwo maasha allah tabaaraka allah meesha hadda wax biyaha kuma darin biyaha waxaa ugu dhigi khalkaasaa ugu dhiga maasha allah tabaaraka allah chikinka oo diyaarsan waa kanaa maasha allah tabaaraka allah oo muddo igu soo jiray biyihii aan kasoo baneeyey haddana bohoraadkan aan gelinayaa ama xawaajiyadan isku qasay aan gelinayaa asaga naftirkiisa waxaa la rabaa 10 daqiiqo inoo lagu haayo wax walbo aad adiga ku dhaaftid waxay noqonaysaa wax aad u macaan marba kasii dambeysa sidoo lafta u galaayo uu sii macaan badan yahay waxaa la rabaa chicken-ka inuu cabo oo cabaar aad ku sii dhaaftid oo jeedaa maasha allah tabaaraka allah asxaabey wallahi haddaad samaysatid waad igu mahdi doontaa hadda waa ujeedaa waxaan rabaa inuu meel u yaala adiga ugu yaraan 10 daqiiqo inaa meel ku dhaafo hadda cashirkayga aad dhamaysatay oo adiga intaan haddaa soo gaartay aad ka heshay ama isku dayday inaa xaafadaada aad ku samaysatid walaalkayga ama walaashayda waxaan kaa codsanayaa inaa walaalaha kale aad adiga u faa'iidaysid aadan noqonin xaasid anigaba xaasid ma noqonin wax walba see u tahay idin soo gudbiyey waxaan kaa codsanayaa walaalaha kale inaad gaarsiisid haddaad asxaabteeda ka mid ahayna inaad igu soo biirtid si adiga cashirad kale aysan kuu dhaafin insha allah gacmo furan qalbi furan aniga aan igu soo dhaweynaya meeshaan waxaan ku haystaa bur adiga 4 koob oo bur ah aan keensaday cusbo yaraa ku darayaa bohoraadkii aan ku darsanayaa bohoraadka aan ku kala micneeyo babriga ka mid ah gram masala ka mid ah maraq digaaga ka mid ah cusba ka mid ah yacni bohoraad asaga dhanba waa isku jumlo waxaa la dhahaa bohoraad ama xawaajiyaal oo shiidan bisbaas yaraa ku darsanaysaa kadibna waa ujeedaa biyo yar meel kusoo shubanaysaa waxaa la rabaa aniga ku sheegaa biyahaas waxaa ugula jeedo waa ujeedaa maasha allah tabaaraka allah xogaa yar baraf yaraa ku daraysaa maasha allah tabaaraka allah hadda digsigan oo saliida halkan liitar saliida waxaan rabaa baroostadeeda inaan ku samaysto teeda kalena saliid aad u kulul kama dhigaysid saliidda adiga xoogaha dhexdhexaadaad ka dhigaysaa hadduu aad kaaga kulaado wuu kaa gubanayaa digaagana dhexdiisana ceeriinoo noqonayaa haddii aad u qabooban tahay saliid badan oo kaa cawaaya marka mar walba ilaalina loo baahan yahay digaagii oo maanta maasha allah oo daay laftii oo kasoo galay bohoraadkii wixii aan kusoo dhaafay hadda waxaa samaynaysaa ujeedaa maano burkaasaa dhexgelinaysaa burka markaad dhexgelisid asoo qoyan haddana waxaad kusoo ridaysaa biyihii aad kusoo ridaysaa waa ujeedaa soomaan biyaha markaasaa ugu soo ridid haddana burkii aad ku celinaysaa fiiriya khiyaanada lagu sameynayo adiga waxaad isleedahay waxa kor macaan badanaa se u sameeyaan alooyaa ku tuso waa kan anaaba hadda ku tusahayaba jaaniskaas haddaa nasiib u yeelatay oo qof nasiib badanaa tahay oo ujeeda haddana burkiyaasaas ugu celinaysaa waa ujeedaa fiiri hadda waa diyaar in la dubo waa diyaar hadda ma sii dhigaysid saliidii oo ku diyaarsan kuleel zaa'idna ahayn qabow zaa'idna ahayn waa dhexdhexaad maasha allah tabaaraka allah waa kana hadda sidaan oo noogu soo baxay KFC deeni xaafadda aan ku samaysanay adigana isku day inaad xaafadda ku samaysatid sidaan iyo si ka fiican waa rajaynayaa inuu kugu soo baxo aad iyo aad u macaan badan adigana familkaaga oo dhan kugu faaniyaan maasha allah tabaaraka allah waa ujeedaa dhexdiisana sidoo noo noqday maasha allah aad iyo aad u faraxsanahay laakiin aad waxaa u jeclaan lahaa inay ila joogtaan maadaama aaday ila joogin oo ay dhadhaminaynin aadi gurigaaga waxaan rajaynayaa inaa xaafadaada aad ku dhadhamin doontid insha allah soo dhawaaw walaalkayga walaasheeda sabskraibka ha ilaawin commentigana waa ii muhiim commentigana waxay adiga ra'yigaaga ah igu soo qor assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiidiyooga xigo sidoo kuu soo gaaro waa inaad furataa gambaleelka laygna
إيسار ميل فوقها إيجار إن شاء الله. أنت أنا إذا قربكينا لي وسو قاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.